nin ayaa waxa uu aroosay gabar aad u wanaagsaneyd, waxayna u dhashay 2 gabdhood, balse asaga ma uusan rabin gabdho. naag kale ayuu aroosay, waxayna u dhashay 1 wiil markii ay 1 sano isqabeen. 15 sano kadib markii wiilka loo dhalay, ninkii waxaa ku dhacay khasaare aad u weyn dhanka shirkadiisa, wuxuuna ku qasbanaaday inuu gado xaaskiisii weyneyd gurigeeda, wuxuuna keenay gurigii xaaskii yareed ee u dambeysay. naagtii ayaa aad uga carootay, dhibaatadana waxay ka bilaabatay 2dii xaas. ninkiina waxaa ku dhacay cudur, isbitaalka ayaana la geeyey, sidii ayuuna ku dhintay. 40 beri markii uu dugnaa, xaaskii dambe ayaa waxay guriga ka burisay xaaskii hore iyo carruurteedaba, sababtoo ah wax walba waxaa ku qoranaa wiilkeeda magaciisa. balse alla ayaa mahad leh, kaasoo wiilka hanuuniyey. wiilkana waxa uu ahaa mid miskiin ah, oona wanaagsan, oona qalbi jilicsan, aadna u naxariis badan. wiilkii markii uu ogaaday arrintii hooyadii samaysay, markii uu maqlay wiilka arrinkaas, wuxuu aaday xaggii walaalihiis iyo eedadiis, wuxuuna siiyey mid kastoo ay ka mid a lacag, wuxuuna dhahay xaqiina intiina kale waad heli doontaan insha allah. intaana kusii meel jooga, wax walba ood u baahantihiin aniga ayaa idiin qabanayo. wax walba asaga ayaa u qabanayay. guri weyn ayuu u gaday, gurigaas ayuuna dejiyey, bil walbana lacag ayuu siinayay. markii ay ogaatay hooyadii kaleeto, aad ayay uga carootay, waxayna u wacday wiilkii, wayna ku qaylisay, waxayna tiri adiga xitaa guriga iiga bax, guriga adima iska leh, iiga bax, xaqayga waa aniga qaadanayo, adiga orod meeshaa doonta aad. balse wiilka kama uusan caroonin arrinka ay hooyadii samaysay, asagoo isdejinaya wuxuu ku yidhi, hooyo, khayrka aan haysano waa mid badan, mana nusqaamayo haddii aan siin dadka xaqa ku leh. xoolahan oo dhan anaga keligeen ma lihin, walaalaheen iyo hooyadeen kalena wayna leeyihiin. hooyadii waa isdejisay, wax kastana si degan ayay ku fahantay, waxayna heshiiyeen ciddii kaleeto. 2dii gabdhood waa ay iscafiyeen, sidii ayayna heshiis ku noqdeen, 1 guri ayayna wada degeen. fadlan waxaan kaa codsanaynaa haddii aad nagu cusub tahay inaad nagu soo biirto, haddii aad hore noola joogtine like noo saar, fiidiyogana sii sheer garee, commentigaaguna waa inoo muhiim, nala wadaag. aadaad u mahadsantahay.